wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay inaan waxba ka jirin wararka sheegaya in la soo saaray saamayn qaybsiga gobolada ee mashaariicda laga maalgelinayo wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF waa kan wasiirka warmahaasi ka hadlaya waxay shalay marayay maxaan ku raahday social media marayay shax inaan wariyaha soo dhigay oo kaga hadlayo sida loo qaybiyay mashruuca la yiraahdo SDF ama mashruuca horumarinta Soomaaliland oo uu ku shaxeeyay gobolada iyo mid walba inta ay ka heshay waxaan ummadda iyo shacabka Soomaaliland u sheegaynaa arkaas arrin wax ka jiraan maaha arrin saliya baartoonale maaha arrin maanta cid xataa dadka gacanta ku haya xataa ay ka jawaabi karaan shaxda uu sheegayo ay shax rasmi ah oo jirta ilaa hadda aan laba haynin waayo waxa weeyaan mashruucii waxna waxay ku jiraan qabyo qoraal waxna weli lama boqorin waxna waa la approve gareeyay oo waa la ogolaaday intaas soo marxaladooda kala duwan bay isugu jiraa ilaa hadda waxa la garan karaa waxa weeyaan dhowrka mashruuc la ogolaaday laakiin wixii kale oo dhamay waa wax qeydin oo gacan uur ku jirta wax la ansixin doono iyo waxaan la ansixin doonin Allahu yaclamiyo waqtigeeda marka ninka shaxda soo dhigay khalkhal iyo been abuur balaaran ayuu geystay iyo dacaayad iyo waran jirin waxaanay tahay inuu isagu ka jawaabo meeshii uu ka keenay iska sahlanta qofku inuu war aan waxba ka jirin sheego laakiin waa lagu xisaabtamayaayo waa inuu proof gareeyaa oo cadeeyaa xogtaasu xaqiiqadeeda taasaana looga fadhiyaa qaranka iyo shacabkana waxaan u sheegaynaa inaan arrinkaas arrin wax ka jira aanu ahayn anigu wasiirana aanin ogeyn ilaa iyo haddada shaxda qaybinta qolada maxaan ku raahday secretariatka SDF-na aanay sheegi karin shaxda iyo sida ay goboladu ay u kala heleen waayo waxa weeyaan waa arrin qeydin oo barkii qeydin yahay inta badan ay qeydin tahay marka been abuurka inta leeg waa dambi qaran iyo waxaan ku raahday software habaabin iyo dadka warbeena oo lagu soo tuuray oo aan ku wanaagsanayn qof saxafi inuu waxa sameeyo waanaanu dabageli doonaa waana weydiin doonaa inuu cadeeyo meesha uu ka keenay iyo xaqiiqada uu warkiisu leeyahay aad baan uga tacsiideynaya waa tacsiye shacabka in been inta laagin loo sheego aad baan waliba nin wariyaa oo mas'uuliyad ka saaran tahay warka uu dhiibaya inuu war xaqiiqo ku fadhiyo ahaado inuu isticmaalo midiyaha uu joogo inuu ku lumiyo oo been aan raad lahayn uu ugu sheego shacabka halkuu war wanaagsan oo xaqiiqo leh haba xumaad hadduu doonayo laakiin warku inuu xaqiiqo ahaado halkuu uga sheegi lahaa inuu isticmaalo qaab qaldan oo maxaan ku raahday jaha habaabin ku keenaysa shacbiga taasuna walba wuxuu geysto waa la weydiinaya haddii la yiraahdo aad baan u salaamayaa shacbiga waxaan leeyahay mashruuca wali hawlihiisi qabyo weyn baa ku jirta qabyadaas ay dhamaatana shax hubantiya oo la heli kara ma jirto sidaana ku warsamaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh